kulan ballaaran oo xog isweydaarsi ah oo ay hogaaminayeen madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo afayeenka golaha xildhibaanada ee dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ahna madaxa arrimaha xisbiga ee xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida ee Itoobiya iyo xubin guddi fulina mudane Maxamed Rashiid Isaaq oo ay ka soo qayb galeen golaha wasiirada maareeyaasha wakaaladaha iyo shirkadaha wasiir ku xigeenada iyo agaasimayaasha xafiisyada heer deegaana ayaa ka dhacay xarunta madaxtooyada deegaanka Soomaalida ee Itoobiya gaar ahaan hoolka shirarka ee Kaaleto hadaba kulankan oo ugu horeyn furay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in xilligii abaartu ku soo aaday deegaanka ay nasiib wanaag ahayd xilli ku haboon oo ay xukuumaddu awood u lahayd inay ka jawaabto abaartii ugu adkayd ee soo martay shacabka deegaanka Soomaalida ee Itoobiya inta la xusuusan yahay iyadoona abaartaasi uu weheliyay halistii cudurka shuban biyoodka dawladduna ay ku guuleysatay in shacabka deegaanka ay badbaadiso oo aysan cidina u waxyeeloobin qadarta rabbi mooyaane isagoona madaxweynaha deegaanka Soomaalida ee Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar ilaahay uga mahad celiyay sidii uu uga asturay maareyntii xaaladihii abaaraha iyo shuban biyoodka ee darna ee soo maray deegaanka shirkidan maanta aan isku nimid wuxuu ku saabsan yahay inaan kala xog qaadano ayuu ku saabsan yahay salaam shalay toole deegaankeena wuxuu soo maray abaar aad iyo aad u daray buu soo maray abaartu waa xusuusan karaysaa abaartaas waxay dhalisay markii dambana caafimaad darro fara badan oo dhalisay biyihii raxmadda ilaahay kaliya ma aha biyo in laga cabo ama wax lagu soo saarto caafimaad weeye iyada lafteeda roobku markuu doo kaliya biyo iyo baadka uu soo saaraya ma aha waxa laga helayay caafimaadna uu yahay roobku haddii roobkii markaa la waayo waxay noqotay in yani biyihii la cabayay ee laasaska iyo ku jiray waxa weeyaan xirfadaha alla qodka ah in markaas iyada ah dee ay ajar noqdaan dadkii markaa taas cabo ama xoolihii taa ay cabaan waxa weeyaan xanuun badan baa ayaa ka dhashay abaartaas iyada way nagu cusbay abaar noocaas oo kale weligeed lama arkin abaarta keliya haata haddana waxay noogu darsamay shuban biyoodkii ayaa nagu darsamay laakiin xilli xukuumaddeenu markaas iyada ay awoodda gudashadeeda waajibaadku shaqa ay uu waxa weeye ka gedisan yahay xilligii hore ay xilligaas u dhacday waayo haddaan soo qaato dhanka xirfadlayaasha caafimaadka haddaan soo qaato hal maalin oo keliya xirfadla caafimaad halkan waxaa ka baxay magaalada Jigjiga 5,000 oo qof baa ka baxay markaas oo u kala baxay goobaha gaar ahaan ay ku badnaa sharar gaar ahaan degmooyinka Gaashaamo iyo Doolo oo waxa weeyaan tuulada Qoriile iyo Danood Waardheer Buuhood waxay meelaha qaarkood uu ku fariistay baartaas abaartaas faraha badan ay la soo martay waxay ahayd mid yani imtixaan ah laakiin ilaahay uu naga saaray imtixaankaas shacabkeena waa loo gudbinay hoos bay noo dhacday shaqaalaha xirfadlayaasha dhammaan waxa weeyaan qaybaha kala duwan ee shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta iyo shacabkeena uu ka qayb qaatay waxa weeyaan inuu badbaadiyo shacabkeena si badbaado fiican oo wanaagsan ayaana keenay ilaahay uu nagu asturay حسبيغان وانقلي حقينه وحوت لو عن السبي مركو يا رد دعيسا حولي ودنكينه وحولي ودنكينه madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxa uu sheegay inay ahayd markii ugu horeysay taariikhda abada ee xukuumadihii soo maray deegaanka ay xukuumadani tahay xukuumadii ugu horeysay ee iyadoon cid sheegin ogaatay baaxadii abaartii deegaanka soo martay kadib daraasad cilmiyeysan oo ay samaysay hadda koor waxa la jiray waxa weeyaan ama hay'adda sheegi jirtay ama waxa dhihi jiray waxaan ku raayay ama dawladda federaalka لا يسابق بجت لكن هو مركي يقول رسي الحكومة دي الأبارة يدو أنت درنتي أقول لك بالله كل كاسة عد كاسة صوغ شيء لو كشلو دولة دي فضلاتها
iyo hay'adda inagoo ku jirno oo qayrin inay soo galeen tusaale ahaan socdaalka uu reeyo ku tagnay meesha la yiraahdo gaashaamo caana madoobeeye tuulada la yiraahdo ilaa iyo gaashaamo inta u dhaxaysa waxaan ku aragnay waxaan weligeed ilooday halka markaa maraynaan khalkhalabeen oo caana madoobeeye ka baxnay gaashaamo bambuha yani dadka halka rafaad ku haysta markii waxa weeyaan aan aragnay waxay noqotay markaas intii aan ku joognay ee ku soconay oo xukuumadda ahayd inaan wada hadallo marano wax kala meesha ka socdo yani baraarugay noo keentay inaan gaashaamo tagno ay ku badbaadaan gobollada kale marka dowladda federaalka iyo barti anagoo joognaa ayaan la hadalay waxaan inuu wax deegaankana ka awood badan yahay dalkana ka awood badan yahay khatar inay tahay abaartan noocan markaana waxay inaan soo eegno baaxadda abaarta inta leeyahay oo socdo meel aan sameyn karno gaashaamo kale kadib dowladda federaalka يعني وبحنتي أنا قد بني أبي يعني الله يعلم مركب عليه ودر نوعا دورنا وقاشنا يجينا حنتي ويخلق لنا وحنا قتي أنا مركب قلنا وقتصاص قلنا كله وقلي deegaanka intiisa kalena saas maxaan kula ku badbaad saddex gobol ee jaran ee qorraxa iyo doolaha u sii daraadaan jaran kale idana gaashaamo hawsi daraato iyo darooriyo si u kala horeeyeen saasay markaa u taqaanay ay ahayd doolo waxa weeyaan danoo baahayd oo sankarka buuhoole sankarkaas buuhoole iyo waxa weeye guud ahaanba gobolka doolo intiisa badana si adag buu abaarta ugu dhacday iyo shubuubiyadku markaas waan xasuustaa war dheer maalintii aan tagnay yani gumirka kubadda soo ahaa shaqaaluhu isma ogeyn dadku isma ogeyn 7 saac ayaan istaagnay waan xasuustaa meeshii maxaan ku raayay 2 saac oo subaxnimo istaagnay waxa weeyaan waxaan ka nimid baahay 9 saac yani 9 saac oo taagniya oo qofna dareemin ayahay socod iyo taagniya ونيجي أنت لنا لما شغالي المسؤولين تاعو سعني مد محضرين ملا 9 ساعة ولا تاني 2 ساعة لقى بالله ساعة كده لما مركز حملها قار كل فريسين كريوين وهو حاله مركز حكومات إلى حكومات شعبها كسقطه كريم ما هنا يقول له بحسن كريم لكن إيه كله هذا شيء توله عشت الرشيم مركز لقيبني أو قبل أموله هو حوالي هيسة مركز المير أو مركز شغالين ونوصل بعد يعني تادوني في كيس المجرى مركز أوي المها وحنقر المركز يودي يسيرها ما نعرفنا إن الرجال هو اللي حنبارسنا المهاس ونهلين وكدي مركز أوي يلا صار يدي مركز صار لنا استمر كله الجودي دي قاميسي هواك مركز يعني عرضها يستوي قوني لا صار ياها شاك قفكي سوية أنا هو فوق أنا غيركنا ما فوق أني أنا كنا حاجة كان غير هذا ما تقنا يدين جينا بريس كلنا والدين جيني حفظنا ما تقنا تبرروا قاوي ملهين كذا قاري على يساري وقاري يدين جيني ونقولي قاري أنت لك بشرن وحده وحده بس عندنا تصمم راح نسافر وخير قضاء الله قصي أنا يباقي الله شيء ما هذا الله الرأس سويت محمد الله كل حين هذا الكامل هذا الرسولي هذا بركة هذا ليس أريد كقدالها مري ليس أريد كقدالها مري ليس أريد كقبضها النقط إذا كامل إذا كرسولي فاتح وأنكم فرحان سنة أنه أمر وقاش سنة رفاض وقاين أنه برواقي سنة رمنا داي
xoolorna waa abaaraysnayn taasaan mataqaanaa xasuustaa waxaan xasuustaa oo kale abaarta laba wiil oo yaryar oo waddada noo istaagay annagoo socno laba yaryar oo waxa weeyaan intaan wardheer ka nimid aan dannad ku soo soconay ayay ahayd waa laba wiil oo yaryar oo waxa weeyaan mid 4 jir ahaa midna waxaan ku rahay uu 7 jir ahaa ama 8 jir buu markaan eego inuu istaagay baabuurkii inuu istaajiyay gacantu sidaa yidhi waddadii waan qaadan weynay markaa war ilmaha yar baa la joojiyay waan degnay waan la fadhiisanay ciyaal yar baa waan la fadhiistay geed kasta waan waraystay waxaan ku yidhi waa sidee oo aabbihi hooyo waa inoo warrameen reerkuna uma dhow haddawow reerkoodii baan lug ku tagnay lug markaan ku tagnay aabbihiina wuxuu maqan yahay hooyadiina way maqan tahay mar halkii baan maxaan ku rahaa raashin meeshii dee buurkii laftiisa baan raashin sokor iyo maxaan ku rahaa iyo bariis iyo waxyaala kale aan u dhignay meesha oon idhaa hooyo iyo aabba tusa marka yimaadaan abshir maxamed halkan waxaad fantaale okay fantaale shinoole iyo waxa u dhaxaysa iyo wacdi shinoole iyo wacdi u dhaxaysa okay waa saxbeerka waxa ku jira okay okay maxaan doo istaajiseen gacanta ayaa saaraha ma keer baa adiga hoosaan ya kayarna uu gacanta saaraha maxaa adiga hore waxay gacanta saaraha jooji maxaa markaa waxaan doo jooji ya نوراوية باورت ما تقرنيش ايه تماسك باورت ما تسكيش شنو ايه يا حاسنا ايش هو عن سراي دينارا بيا دونس يا عبنا شنو ليش حاجه دون شنو تقنا لا دي فاشن عوصه عصام استا عاوز حقيقة عاوز حقيقة لا دينا انا معايا وكذا معايا ما شاء الله حلو يا صاحبي هذا بقى عورة محمد الحمد لله يا ساعتين هذا ما باش بيه واذا كنت لا شادي بيدي لك شو وين نوعين صح تبغى تعدين تدي بيلو شوي يا وكدرينا وين ما هستبيلك شو وين ما هستن يا بس يا صاحبي اوكي وسعد ويلكو حلن سيني شركانه سوونا نعم شركانه لا سين هي بيئه هي وليسكول يسمع يبيو يتمر انت صدق ما سين يبسك waan ka soo tagnay reerkiisa oo ku raadiyay markuu ku soo noqdo reerkiisii oo hadana buuxa ninba wuxuu yiri xaqan ba ilaahay ka dayay xaqaas weeyay war xaqan ilaahay ka dayay ilaahay xaqan uu jira xaqan uu siiyay iyo islaamada raashin la qaybinayo waxa jira soo qaado ilaahay xaqa damana uu joogay xaqa la eegbiiri marka waxa ninkaas maamaha sida ku dhacay maalmaha ay siiyaan tisakoriyo bariisin baa guriga loo buuxiyay ayahay waan xasuustaa sokoriyo bariisin baa guriga loo dhigay kadib reer kasta oo markaas aan aragno waxa la dhigay sokoriyo bariis iyo biyo waan xasuustaa inta safarkana iyo kaliya anaga la socda ee anagu intaan kormeer baa ku jirnay laakiin kormeer haddaan ku jirno haddaan aragno qof waxa weeye tawaalaysan haddaan aragno maxaad qaban kartaa abaar lagu jiro 5,000 oo jeerigaan oo biyeysan oo biyo xiran baa nala socday oo biyaha inta magaalada ka dhaadanay xidna oo jeerikaan oo qofkii marka aragto autobus waa jeeri 3-4 baabuur bay saarayeen maxaan ku raacay jeerikaanada biyo iyo timir isku xidhan oo qofkii marka soo aragto aasiinayso uu ka soo bixideen waxay ku adkaatay waa ismaqal iyo kala dambayn sida iyo awadeen la kala baryood samaay haddana dimadu shaqaynin afceel maqadaalay
waxay ku adkaatay waa ismaqal iyo kala dambayn sidaa iyo awadeed la kala baryood samaaye haddaana digoodu shaqaynin afceel sidoo kalena madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa cadeeyay in shaqaalihii caafimaadka ee ka howlgalayay xaaladihii abaaraha iyo shuban biyoodka ay la kulmayeen dhacdooyin mucjiso ah oo dhanka dhaqankeena ku saabsan isagoo dhanka kalena ka sheekeeyay sida ay xukuumaddu uga jawaabtay xaaladihii abaarta iyo shubanka ee deegaanka soo maray abaartii markii aan hawsheeda ku jirnay ee haddana uu shuban biyoodku yimid in shaqaalaha qaarkood ay mucjisooyin fara badan la kulmayeen tusaale ahaan nin shubanbiyoodka ku dhacay xasuustaa iyo inanayaal buu ahaa shubankiina uu ku dhacay xaaskiisii ku yidhi meesha dhexdooda iga qob god iga qob yidhi halkan baan maxaan ku raaya aan ku dhintay anaa meelaha si kalaa laga arki maayo yacni dhaqankeena adaygiisa ka yaaysa dadkii wareegayay waa soo saareen xubnaha hadda halkan bay fadhiyaan iyagoo wareegaya iyay soo saareen gabadhaa hoos ahaan ugu sheegtay markaa waa miyiga bartankiisa weeyaan waa meel reer meel iska degan weeyaan markaas oo meel iska degan weeyaan gabadhii waa wiilashii gooni u sheegtay sidii waa ninkii lagu soo qaaday sidii waa lagu badbaadiyey yacni markaas meelaha magaalooyinka ah dee waxay iska ahayd maxaan ku rahay dee heesantarkii waa ku yaalla heesboosi waa ku yaalla isagaa soo hadlay oo dhihi intaasoo mataqaanaa kays baan hayaa halay soo gaaro dhihi oo isagii baa soo sheegi dee laakiin dad reer miyi oo miyiga ku jira marka in idaacaddana aan ka sheegno dadka la yidhaha waddooyinka iskugu yimaada oo meelaha waddooyinka yimaada dhammaan ciidanka liyu boolisku ay sidaas u galaan duurka oo ay dadkii soo ururiyaan bay noqotay dadkana in goobtaas iyada ah waxa weeyaan lagu sameeyo cuntadii dee intaas oo kun oo waxa weeyaan kintaal oo bariisa yacni every day misal meelaha kale ta kale xoolaha inta ayna dhimanin ay miida yihiin in iyaga loo qalo laga iibsado kow inaan ka iibsano xoolaha isla markaana goorba isagu markaa inuu xoolo iibsan karo neefkii inaan qiimaha ugu sarreeya ay dowladdu kaga iibsato dadka mataqaanaa fikirkaana waan keenaba ahayd inaan dadka ka iibsano xoolaha isla markaa haddana iyaga loo qalo maalmaha qaarkood degmooyinka baa 60 iyo 50 neef la qalayay marka haddana dhulku muxuu ka yimid ilaa waa xasan dee 70 neef oo meel lagu qabo 70kii madax 70kii uur ku jir haddana waxay soo baxday inay xanuun kale inuu ibaadadii hawsha waxay taa maxaan sameynaa haddana in god la qolo oo degmadu ay god qodo neefku markii la qalo ufiisa lagu aaso lagu jiro oo waxa weeyaan waxbaan banaanka la arkan caafimaadkeeda taas ahayd waxaan ku guulaysanay in ceel korkiisa la dawo raashinkii lagu sameeyo haddana maxaa soo baxay oo warbixintii shaqaalaha ka yimid ninka geer jiraha ee waxba haysanin sidoo wuxuu cuno meesha xoolihiisina marmar inay ka tagaan intii waxa weeyaan halkan uu ku xaranayo in geer jiraha loo diraayo maxaan ku rahaa takeaway cunto markaas iyada bacanka lagu riday waxa ay wishi ku jirtay takeaway loo diray iyo mid uu saddex shaysan karo oo hilibka la salaa qaybna hala kariyalay qaybna hala salaa ayay waxa maxaan ku rahaa aan ku guulaysanay inaan xasuusta keenay waxaan joognaa waa goobta waxa weeyaan quudinta degmada Daroor hilibkana waa kii loogu talagalay geel jiraha ee dadka maxaan ku rahaa markaas iyagoo socdaalka dheer gelaya raashinka caadiga marka cunaan kana waxay ku ridanayaan kiishka saasi ma tahay marka waa aad iyo aad baad maasantiin magacayga waa la Maxamuud Geed magan ma geel jiraan anigu ah geel ma meesha ka waraabin jiray aad iyo aad baan ugu mahadsantiinoo madaxda iyo dawladda iyo adduunweynaha waan ku mahadnaqaynaa mabana noolaan maantana iyo geerayguba yaa waa mahadnaq baan idinku mahadnaqay markii geelu biyaha ka dhargo uu istaago anana hu dharku maanu galayno hilib iyo baris ka dhargayn cabdidheeg maxamed cismaan tarax baa la yidhaah kolka waxaan ku mahad celinayaa ilaahay iyo dawladda ceelka noo qoday ceelkii markay noo qoday ee ay biyihiina ay noo soo saartay baa cawskiina noogu dartay hilibkii iyo sonkortii iyo bariiskiina way noogu dartay markiina loogu daray xooluhu markay cabbaan caws baa loo dhigaa ruuxa xoolaha wada ama geela wada anigu maanta geel baan waday
kolkii geeli biyihii cabbay caws baa loo dhigay anigiina hodheelkii baan tegey aniga kii yaraa dhelee la socday kolkaa dawladda ilaahay iyo dawladda iyo ragga noo qoday baanu ku mahadinaynaa oonu ku salaamaynaa horta khibrad badan waa in la qoro u baahan baan ka baranay sida looga samata baxo abaarta dadka waxaa la manage garan karaa markaad meel iskugu keentay dee 10 tuulo transportigii waxa weeye waqtigaa ugu cajiisan wax bishiiba maalin kula noqonaysa waxa weeye transportiguna ugu muhiimsanaa marka dee transporti gaariga halka ka baxa waxaan xasuustaa maalin qoriiley ay khatar ku jirtay khatartii ku jirtay waxaan gurmadkii dhan kasta joogay kii wareer joogay galba lagu yidhi kii waxaan ku rahaa joogay shilaaba galba niri ku kale waxa weeye waxaan ku rahaa gaashaamo joogay sana galba la yidhi yacni halkii waxaa iskugu timid qoriile waxaa iskugu timid intaas oo kun oo baabuur baa iskugu timid tuulada qoriile yacni dadkii iyo gurmadkii yaa isugu yimid marka waxaa kale ku guulaysanay tiimka wareegaya ee isagu marka aan ku soconin meel ee stand by ah مثلا وان حسوستا بيو كله 170 بويدود oo biyeysan baa stand by ah 170 oo wax la soo koriyay wax dawladdu ay leedahay ay noqotay booyadahan ka ay dawladdu ugu daqdo dadka shacabka ee isbedelka cimilada abaaruhu ku keeneen loogu dhaaminayo booyadahan aad aragtaan iyo dhammaan gobolka Doollo iyo degmada Marsin iyo degmada Gaashaamo intaasba booyadahan aad aragtaan iyo booyado kale oo aad iyo aad u badan ba ku kala maqan oo ay xukuumaddu ugu deeqday inay macnaha dadkeeda shacabka tabaalaysan inay u dhaamiyaan maalintii yani imika hadaad samayso shopping adoo gaajoon hadaad shopping samayso hadaad soo samaysato kana waa iska qaada wax kasta hadao laakiin markaad dhegeysantahay inaad shopping aad tagtaan markaad dhegeysantahay inaad cunto soo iibsato shopping doonato ayay ku fiican tahay adoo gaajoon hadaad raadsato wax kasta dhan kugu filaayay markaad bilowday in yar ma soo cunaa iska kacay laakiin gaajada waxa ku tilmaamay waxaan dhan inuu kugu filaayay marka waxa ka wada booyadaha waagi maadaama u baahnay hadda booyadiisa aan kala garanaa direerintoodii waxa weeyaan maintenance-koodii kharashkoodii waa si alla sina kayda booyadiiraan hadda 300 oo booyad oo 3 nooc oo degdemiskiina leh شاور كيلو لا يسرنسا اي هذا الله maxaan ku raayay biyo qaadaysa ayaha shana hal maalin soo iibin maxaan ku raayay 300 oo booydood yaani maalintiina ka cabsanayna hadana kuwa hadda iska yaalo siliga la jirin waa kuwa kun ee litir qaadaya yaani taa maxaa ku tusaysaa maalintii biyaha si loogu baahdo iyo booyad marka meeshii biyaha ka dhacdo in waxa weeye markaa stand by ayahay madaxweyne cabdi maxamuud cumar oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in haddii uusan jiri lahayn xilligii abaarta isticmaalka aaladda casriga ah ee xog isweydaarsiga ee sida moobilada iyo warbaahinta deegaanka ay dadka nabaadiyaha ay ku li'an lahaayeen abaartii iyo shuban biyoodkii labadaba dadka geerjiraha hadduu ku dhaco nin geerjiraha oo dadkii waxa la isku xidhay idaacadda inta shaqeynayso halka hadduu ka dhaco taleefankii uu shaqeynaya meel kasta oo taa ku guulaysanina ilaahay dii waqtigu markaan leeyahay waqti ku haboon maaha dee hadduuna taleefon jir leeyahay bas dhawkaas bal abaartii iyo waxa weeye shubakii nagu dhacay on taleefon lahayn deegaankeenu si dhawkaas wallahi ilaahay ma taqaanaa yani hadduu xilli keenayo xilligii ku haboon ayuu kana dhikarna calaasha waxaan iska yidhi had meeshan oo taleefon lahayn mobile aan lahayn waayo reemigii dhan baa mobile haysta taleefonkii idaacadda looga sheegayay umu soo garaacayeen haddaad aragto hawsha taleefonka soo garaac haddaad aragto hawsha taleefonka soo garaac busy bay noqdeen command postigii in laga dhigay ilaa konton waxa weeye command post oo taleefanada haysata waxay dhihi laba nin geer jira oo halkaa tagan baalku ku dhacay dhulka walka ay leeyahay oo gobolkii aan soo qaadnay gobolkii aan shardignay gobolkii markaan shardignay qoriile ilaa intee ugu soo gurmin kartaa halkaa istaanada ha joogo ee danaadii inta u dhaxaysa maxaan ku war dheer ka shaqeynayay istaanada waxa ku joogaya halkaa joogo GPS-ki baa haysataa waxa GPS-ku cajiib GPS-ka haysta qofkii baa laga hadlay waashi baa la garanay toos sida u geynaya meesha u tagay u geynaya halkaa galba leeyahay marka
waa loo tilmaamayaa isaga intaasay u jirtaa halkaa ka raadi reerka baa la dhihi meelihii dadkaa suntay uu raadin wuu soo qaadaya hal saalan siinaya marsin baan 12 soo galay marsinna markaa way ka roonayd mataqaanaa gaashaamo xagga maxaan ku raayo shumanka oo hal xero laba xero ka jirtay marsin meesha halkan ilaa 4 shan ay ka jirtay inaan marsin habeenkii seexano maadaama habeenimo soo galay oo maqrib soo galay haddana waxaan ka doorbidnay maadaama oo waxa weeyaan ceel baxay hankarka u yaalay in yani aan dadka in aniga la socono sidii baan horta ku tagnay xubnaha qaarkood waxaan dadkii oo adeeginay baasnidi waxaan ku rahaa aan warwuxay sidii la iskaga meediyay waa kuwan garanaynaay aan tagna meeshii okay mas'uuliyadda qaar iyo walbaarsan wala ninka sanadka u jeclayday waxa weeye waxaan ku raasay walbaarsan ma meeshii tagna ilaa madaxweyne ma laga deeyay meesha waxa oo dhigtay saaray oo baa ilaha wala sheegay oo waxa yaa meesha aan tagna oo ceel baxay saxana waxaweye baashiyaas marinay wixii baa isku buufintii mataqaana waxaysan laakiin dee haddii ilaahay kula damco buufintana ku badbaadi maysid weligaaba lagu hayska baabay haddii tii ilaahay tahay waxaweye intuu soo qaafo mustafa kaa geliy macal buufintana waxaan buuna ku shaqay waxaan ku war halkan haddii inagoo haddana taxadarina dee taxadar balaas mataqaanaa dee yaqiinta iyo taxadarna isku darno taxadarno haddana waxaan ku raayo sidaan ku galay madax intaa madaxweynahoodii iyo maamulkoodii iyo wasiiradoodii iyo kuwii degmada bartii waxaa laga sheegayay aan seexanno oo aan la noolaano oo waxay qabaan aragno horta waa tii koobaad arag iyo maqal baa horta aniga iigu horreysay sidaa horta waa ku sii mahadsantii maxaa yeelay madaxweynihii iyo wasiiradii iyo guddoomiyeyaashii baa ku baryay habar waliba saaka wixii caafimaad dawladdu haysay iyo wixii ay dawo haysay lagu dhumayso waa ku mahadsantii laba bilood ayaan maxaan ku raayay yaan ku jirnay oo magaalo arkay ayaa waxa weeyaan kolba tuulo iyo kolba qabale aan saxnayn taa maxay keentay ninkeena wuxuu igu yidhi oo geljira horta aan weligiis ma lahayn bidi dawlad baa u baahan dawlad waxay tahay ma garanayn bidi laakiin maanta waxaan ogaaday dawlad waxay tahay maanta weligiis ma lahayn harduurkaas iskaga jiraayo waxaana ilaahay weysiiyay de dawlad baa u baahan ma wadayba waxaan ugu baahan garanay buu yiri laakiin maanta aan ogaaday dawladda ma taqaanay shan ugu baahan waxaan sakaya ma lahayn yiri raashin la rabo waan arki jiray caws la soo raraya caws in baabuur inta la saaro xoolaha loo qaybin karaba waayo 70 80 boqol waxa weeye 60 baabuur iyo hal mar ka baxay magaalada waxa weeye maxaan ku raacay caws saareeyay xoolaha in caws loo qaybin karo raashin la qaybin karo dadka raashin baa loo qaybin oo qaadanayaan waan maqli jiray laakiin inaan u galo selfie xoolaha inta aan leedahay maxaan ku raacay laga diiwaan geliyo lagu siinayo caws lagu siinayo weligii ma arkin biiri weligii inaan si welisana ma garanayn ta kale wuxuu yiri waxa iga si daran ba cawska sida loo xidhay meelay sidaa uu leeyahay qaadan karo oo qaadan karo yani inta leeg baa isku mashquulsan waxyaalaha ay leeyihiin waa taas biirto waxaan soo aroornay geel waxaan u soo aroornay riiga degmada Xarsimeeda waxaan ka waraabinay riiga sida geed geel iyo gaajoonay oo biyo cabaya oo awood biyo ku caba hadana la oo biyo cabaya ayaa waxa halkan loogu keenay saaka gawaari caws oo loogu dhigay geel iyo looba halkan xoolihii ayaa loogu keenay halkan ayaa markaa xoolihii cawskii iyo biyihii oo tulyaal oo bilaash labadiiba lagu siiyay أوامرك دولة ديمو وقامك الله يمضي وحان وأمان يا أمانة إيو حكي إيقا لودي بشالي سدايو إيداليا تذكريانا ووطنينا أمرك وديبني ومدنا نبتا وأبابنا يا madaxweynaha ayaa sheegay in mar haddii abaartii iyo shubankii laga soo baxay roobkiina uu da'ay in waxa ina sugaya uu yahay sidii aan bulshadeenna ugu wacyigelin lahayn ka faa'iidaysiga roobka iyo ilaalinta saxada caafimaadka ee noolaha waxa weeye haddaba maxay ina sugaya hadda waxa ina sugaya dee waxa weeyaan roobka in waxa weeyaan aan ka faa'iidaysano xilli roobka hal arrin aan sheegaya
wacyigelin fara badan oo shubankii waagii maxaan ku rahay aan keenay oo reemiga waxay ahayd barkada marka la qodayo gacanku wuxuu ku xigaa dhankan ilaa barkada hadduu roob xaga ka doo meelaan gacan lahayn ka doo ma galayo biyo barkadii marka wax weeyaan gacankan haddii dhankiisa saxara lagala fadhiisto inuu soo qaado uu soo gelinayo ayaa maxaan ku rahay reemigana waa reeguura markuu maanta meel degay inuu masquul qodanin baa suurtagala wacyigelinta reemigaan ku wacyigelinay inuu reer kasta masquul qoto oo masquusha baashiyeelada ku qaadanayo tiro mobile oo mar godkii qodo oo kor dhigayo goordhowna maxaan ku rahay intuu dhanka iyo dhanka u kala jabiyo godkiina isdumiyo aaso fadhigi lagu fariisanayna qaato arrintaasuna waa arrin waxay maxaan ku rahay caafimaadka wax ka taraysaa oo reerkii markuu mar guuro baashan fadhiga ee aan tiirna u baahnayn wax ka samaysan oo la kordhigi aarba hadana qaadanay mobilkaasuna aad bay maxaan ku raay u fiicnay ta kale in lagu wacyigeliyo gudaha meelaha biyaha haddii saxara la fariisto dhibkay leedahay wax badan baa inuu taqaana ka faa'iiday roobka haddaba inaad ka faa'iidaysano xilligiisa loo baahan yahay maanta maxaan ku jirnaa maanta waxaan ku jirnaa xilli roobaad ilaahay baana mahadle alxamdulilah taraam sama roob khayr qabi ilaahay nasiy ilaahayna nagu sii wado oo roobka nagu sii wado laakiin haddana nimco kasta nusqaan bay leedahay ilaahayna nusqaanteedana hanaga duwo waxa weeye geeska afrika meel ay xoolo dhaqata degto dhanba waxaana ku dhacay maantana geeska afrika meel ay dhigantay oo dhanba roobkii wuu helay wax ilaahay lagu maadiyo laakiin inaan ka faa'iidaysano loo baahan yahay oo hadda calafkii dhigano beertii aan beerano laga faa'iidaysto waxa weeyaan aan ka faa'iidaysano yaa loo baahan yahay wax qaladkeena waxaan xasuustaa boondiyadii aan samaynay 4 shoo jijiga roob ka da'ay baa xakanoo abaara yaa yimid suu socodso togii wuxuu tagay maxaan ku raay qabridaha yaga waxay galeen maxaan ku rahaa boondiyadii roomadiin hadda waa jilaalkan waxa weeyaan abaarta lagu jira laakiin haddana daruuri yaro ma taqaana waxa weeyaan jijiga ku daday roobkii jijiga ku da'ay weeyaan waxa hadda ma taqaan halka lagu qabtay shacabkii waxa weeyaan qorraxay waxay soo tooseen aroortii oo waxa weeyaan intaas oo milyan oo mitir kuuba biyo wax haysan ay soo tooseen way yaabeen biyana xaqiiqi maadeen systemkii ku galiyay biyo boondiyada ayaa maxaa ku jira kaas horta isagoo biyiisan iyo hada roobku soo galay boondiyadii waaga biyoobay isagoo sidii biyiisan oo dhamaanin ayuu hadana roobkii maanta ugu yimid marka waxayaan shalay roobkii magaalada Jijie ka daay wuxuu ka badnaa sida idaacada TV-ga ka maqlayseen kii waagii hore intaas soo jeer buu ka badnaa ku labalaamay mitir guba marka la waxa weeyaan laakiin hadda magaalada Jijie haddii intii toga laga qabtay wali weeyaan oo lagama wali shaqada kuma joogto 20% 30% lama sameeyno laakiin 20% la taataabtay waxay noqotay in at least haddana ay wuxuun marka uu saameynta yeelanayay shaqada markay dhamaatana way fiicnaan doonaa hadii la yiraahdo wala waxa loo baahan yahay in cid kasta ku sayso in dadkeena beerashada aan ku abaabulo aan hawl waxayna loo baahan yahay dhanka kalena madaxweyne cabdi maxamuud cumar madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo ka hadlay arinta isku shaandhaynta ee lagu sameeyay golaha kabinega ayaa sheegay in muhiimadda isku shaandhayntu ay tahay dardargelinta shaqada iyo sii adkeynta nidaamka xisbinimo shaqaalaha maxaan ku rahay isku bedel kariyo reshufflement aan sameynaba waxa weeyaan la isku sameeyay kii maaliyadda joogay biyaha tagay kii biyaha joogay maaliyadda tagay waxa weeyaan waa shaqo uu dardargelin weeyaan dardargelin shaqooyinkii manaba laga manaba in la isku akhriyo
marka saasaa loo baahan yahay dhanka kalena afayeenka golaha xildhibaanada ee dowladda deegaanka soomaalida ee Itoobiya ahna madaxa arrimaha xisbiga ee xarunta dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida ee Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isaaq iyo maareeyaha guud ee mashruuca horumarinta bulshada reer guuraaga ahna xubin golaha dhexe mudane Cabdixakiin Cigaal oo weheliyo mas'uulka cusub ee loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka soomaalida ee Itoobiya ahna wasiirka xafiiska caafimaadka ee deegaanka soomaalida ee Itoobiya mudane Xamdi Aadan Cabdi ayaa waxay dhammaantoodba ammaan iyo bogaadin ballaaran u soo jeediyeen biseelka siyaasadeed ee uu gaadhay xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida ee Itoobiya iyo nidaamka isku shaandhaynta kaabineedka maanta laakiin xisbigeenu wuxuu ahaa xisbi shacab aragti shacab leh shacabkanun baan iska soo baxnay shacabkanun baan u shaqaynaynaa shacabkanun baan annagoo wax qabanaynaan u dhimanaynaa ka dhigan hadda kolley waan kordhinay isbeddelna waan keennay tii madaxweynadu sheegay dhanna kolley waa qabanay abaarta frequent dagaalkeena frequent macnaheedu oo soo noqnoqnays waay we have in our region semi-arid land. Semi-arid land means abaartu soo noqnoqnays waay oo laga raagaynin dagaalkaasaan leenahay dhul fiicanaan leenahay balki from south to north east Ethiopia deganahay so dhammaanteen Soomaaliyan nahay Soomaalinimad waan jecelnahay we are from these people we work and live for these people and we will die while we are doing good of these people again so xubna intaan leenahay kolley xubnaheena dafar boqol intaasoo kulu soo gaaray xisbigeeni xisbi shacab kobta shacab xisbi aragti shacab xisbi horumarineed oo hogaaminaya dowladda horumarineedana dowladda horumarineed indhaxo maxaa ka dhigan tahay dowladda horumarineed shacabkana leenahay dhammaanteen Soomaaliland nahay aan wada iminay shacabkeenu annagoo meel shacab gaaray Itoobiya barobad beerberesmood የደረሱበት ቦታ ለማድረስ ነው inaan Itoobiya gaarno waa Itoobiya dhan hal doontay fushantahay doontana doonta horumarineed waay inaan ka dhaxno ma doonayno inaan meel Itoobiya gaartay aan wada gaarayno baan doonaynaa ka dhiganta reshuffle sidaan samaysanay markaan samaysanay intii sidii hore aan adkaanaan ka sii adkaanno baan yeelnay aan midoobno roobkan sheegaan ka faa'iidaysano shacabkeena meel saraan gaarsiino intaasun baan soconnay waa kale ma reshuffle qof maaladii ogaadiyaan geyno biya right person on right position aan geyno annaga right person on right position wax qabadkeen inuu aan labalabno baan doonay wax kale ma isku beddelka iyo reshuffle-ka uu xisbigeenu sameeyay waxa iyaduna tusaale u tahay oo in hoosta laga xariiqa xisbigeenu hadda halka uu taagan yahay afayeenka iyo madaxweynuhu carabku ay ku dhifteen xisbigeenu waxa weeye in intee la eeg buu adag yahay in intee la eeg buu muwaafaqo leeyahay in intee la eeg buu midnimadiisu tahay wax kale kama turjumayso in intee la eeg buu adkaaday in intee la eeg buu mid yahay in intee la eeg buu isku duuban yahay bay muujinaysaa kolka mas'uuliyiinta kullay shaqaalaha maayna mas'uuliyiinta halka fadhido dhanba giraala jaw shalay waxaan u sheegayaa arrintaasi adayga xisbigeena inaad qaadataan midnimada xisbigeena inaad qaadataan aragtideenna xisbiyo adkaatay inaad qaadataan Soomaalinimo halkeedii ugu sareysay adayg ay gaari lahayd gaadhay inaad qaadataan oo qabyaalada laga baxay inaad qaadataan xubin kasta oo halkan fadhiya amba dawladda ha noqdo amba shaqaalaha ha noqdane taa inuu qaato weeyaan aniga hadda reshuffle-ka madaxweyne ku-xigeenkii waan wareejiyey wiyaa fadhiya walaalkay Xamdi baan ku wareejiyey waa nin ilamida area midaan ka soo jeegnaa waliba magaalo midaan ku dhalanay aqoon haddii la yidhaahdo aqoonta intaan leeyahay hadduu iga badsan buu leeyahay waa masters caafimaada wasiirka caafimaadka loo dhiibay waa dhalinyaro waan garanayaa karti badanna waan ku ogahay isbeddel badanna inuu keenayo shaqaalaha uu u tagayo amaraarka uu ku cusub yahay horta kuma cusba shaqada wuxuu ka shaqeeyay
كوبية طبعاً كقبل مالها مال وكشقين متجرو أنا إنتان دول مرينا وانكو الرحي وانكو أركي قبردار وانكو أركي جري جودي وانكو أركي جري شرر وانكو أركي جري حبني فيق وانكو أركي جري وقتها دي أن تيجي جري وضعينا سلسلة سعني أنت مالات بانكو أركي ورتو كل بمال وبانكو أركي جري أنت هذا وحوها جودي جدا بقالك حفيز كمدحوينا وأنا حبنيه وجوءك جودي جدا بقالك حفيز كمدحوينا مالك صوتها لحسنا تضرب سنة يونا هوشة كشقيني قف أنت كشقين على يقول لي منين وتشيلين ما بمسني به قف دقمو قبل صامري وأبي جاي قف كاس كل كا عنيجا معناها وتشيد هذا وصعد وحوين إن الصومالي وأتكاته وحسب وأتكاري أنك يبدلي بياك فديا وحنكو كلا دونا يمشرو هل أرينا ما كو كلا دونا يهداد قرن إنسان يهداد قرني به هل أرينا وحوين غوريغا انتان دغاي سو دغاي سيمان تا هويستان حلارينا ما كولا دووناي wax kala oo ilaahay abuuray oo ku kala duwanaa xisbinimada waa very strong حلارينا ما ku kala duwanay waa kala dheeraayun nin gaaban oo bul nin dheer bedelay intaas ku kala duwanay marka hore mas'uuliyadan culus ee maarataanay xisbiguna eegmaday inuu ilaahay nagu asturo kuwa shacabka u shaqeeyo ilaahay naga dhigo waan naga codsanayna inaad dhammaan noo duceysaan annakuna dadaalkeygii maan la imanna insha allah kolley waxaan ugu cusubay waa xilkan culus ee maarataane iyo mas'uuliyadan xisbigu maanta uu noo idmaday balse laakiin shaqooyinkii deegaanka ka jiray 5 sano u dambeysayba waan shaqaynaynay oo waan ka marakacaynaa waan ognahay oo dadkii hoose ee maaratan shaqaynayay man kamid aha marka guud ahaan aad baan idin salaamayaa walaalkii Cabdixakiin ee iga fadhiya waa nin walaalkaya waxaan aaminsanahay inuu shaqada aan qaban doono qofka koowaad ee qacamigu siin doono noqon doona aaminsanahay boqolkiiba boqol aniguna waxaan aaminsanahay inaan la shaqayn doono isaga dhammaan hogaaminta kale garabkayga fadhidaba aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waan salaamayaa ballanteenu waa shaqo hadalkaygana waxaan ku soo go'ayaa dib u curashada hawarto waxaan u dhaxaad u nahay dib u curashada weeyaan guusha maanta anagu aan gaarnay haddaan nahay dhalinyarta deegaanka anagoo magaca dhalinyarta deegaanka xaliftiga ku hadlaya nidaamkan ku gaarnay waa nidaamka dib u curashada weeyaan marka waxaan ku celcelinayaa 3 jeer iyo in ka badanba dib u curashadu hawarta leeyahay dhammaantiin waa mahadsantihiin ugu dambeyntiina madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa hoosta ka xariiqay isla mar ahaantaana shacabweynaha deegaanka looga baahan yahay in aysan istaagin meel ka hooseysa Soomaalinimo iyagoo ku faanaya Itoobiyaanimadooda isagoona dhanka kale madaxweynuhu amaanay dhaqanka Soomaalida gaar ahaan dhaqanka nibaadiyaha isla mar ahaantaasna shacabka deegaanka ku booriyay in ay ka faa'iideystaan roobabka xukuumaduna ay u gurmanayso shacabka ay fatahaaduhu sameeyeen Ethiopia waa qowmiyado Ethiopianimadu waa seedkaas waxa weeye universal seedkaana waxa ku hoos jira sabseedkaas aan qayb kamid nahay taasna waxa weeyaan waxa loo baahan yahay marka adigu aad Soomaalinimadaada adkayso ee ixtiraamto ee ku faanto Soomaalinimada iyo dhaqanka suuban ee Ilaahayna siiyay ee nadiifta ee wanaagsan ee kow waxsasiinta iscaawinta iyo waxa weeyaan ixtiraamka sharafta wanaagsan ee Soomaalinimada aad ku faanto umbay qowmiyadaha kale Ethiopia ku ixtiraami Ethiopia wax weyn markaas Ethiopia qowmiyadaha kale Ethiopia waxay ku ixtiraami adu markaas ixtiraamto inaga oo luqadeena ku faanayna oo Soomaalinimadeena ku faanayna
oo dhaqankeena kor u qaadayna dhaqankeena wanaagsantii hidii dhaqan baan lahayn Itoobiya 3,000 sano jirtaa deegaankeenu waa meelaha la oranay nabi aadan haduu soo baxay hormarlaantiisa uu garan lahaa meelaha la oranayo weyn eesaas loo dhigay weyn marka 3,000 sano waxa weeyaan manima ka dhigan tahay hadda malaha haduu nabi aadan soo baxay inay garteen hadda maxaa ku raacay jijigiye garan waayay ilaa meesha muun ogeyn halka muun ogeyn fiiqina leenahay day muun ogeyn waxa biyahan iyo ceelasha la qoday muun ogeyn hadda waxoogaa u dhila meeshan xagee ahayd laakiin shay oo 5 sano ka hor ama 6 sano ka hor wada garan lahaa aad u garan leeyahay haduu yimaado u garan lahaa marka waxa way halkaasaan mareynay haddana waxaan u baahanahay Itoobiya sidii aad horumar kaga gaari lahayd wasaarihii dalka markii isbedelkii saa loo doortay kugu yimid waa midnimada Soomaalida Itoobiya qowmiyad wuxuu kala qarsanaysaa qabiil uma kala qarsanaysaa luqad dhaqan iyo diin iyo juqraafiyad ay degan tahay oo qowmiyad ku salaysan ay ninkastana maanta Itoobiya qowmiyadiisa ku faanaya Itoobiya baan nahay Itoobiyaanimada inaan ku faano yaa loo baahan yahay oo Itoobiyaanimada aan ku faano Itoobiya baan nahay marka qowmiyad loo kacana Soomaali baan nahay hadda dhaqankaaga xoojiso dhaqan baan leenahay luqad baan leenahay luqadeena iyo dhaqankeena waa inaan horumarinaa inagoo ixtiraamayna qowmiyadaha kale dhaqankooda iyo jiritaankooda diintooda ixtiraamayna dhaqankeena iyo diinteena iyo jiritaankeenna inaan horumarino kuna faano oo Soomaalnimada wax lagu faano weeye aan ku faano Itoobiya ma nahay laakiin Soomaali baan nahay Soomaalnimada inaan ilaashano Itoobiyana hadda waxa weeye waxa nidaamka federalismkii ogol yahay ee wax goynayay waa Soomaalinimo oo kaliya iyo Soomaalnimo Soomaalnimada ay ilaaliso in baa wax ka goyn karaysa waxaad yaabi nin reemiye marka uu tagto Soomaaliya oo reemiye waligii magaalada sharaftiisa ka yaabay marka ay sagto oday ganacsi oo wanaagsan oo qurux badan oo kitaabka halka inta ku wato waxa weeyaan saaka xoolii u dareereen oo wanaagsan quruxdiisa iyo wanaagiisa iyo udgoonkiisa yaa markaas Soomaalida jeclaanba wallahi yani marka miyiga u dhadhacdo ee hoos u dhadhacdo ee wadaadkii maxaa ku raay darkii intuu xinaysay kitaabna halka ku haysta waxa weeyaan xoolihiina dareersaday ee waxa weeyaan intuu caday qaatay cadaday oo aroortii waxa weeyaan eegada oo waxa weeyaan salaadiina tukaday bakooradna horta salaamu calaykum markaas tiraan wa calaykum wassalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh markaas ay isku salaantan udgoon ba kaga soori wadaadka isaga waa maxay haddu ka soo baxay ardo waxa weeyaan iyo saaka salaad subaxna ugu tukaday aragina uu dareersaday kitaabkiina halkaas ku wata bakooradna uu wata waxa weeyaan maamulkiina uu bixiyo oo soo bixiyay markaasaan ugu tagnay meeshii assalaamu calaykum wa calaykum wassalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh adar waan soo siyaarnay waa dawladii malaa'ikada soo siyaaratay soo fariista ya heli kara waxaas wadaadka iyo dhanka dhalinyarada intuu soo baxay geeli ilaaliye dhaqankii ilaaliye taas weeyaan ta kale xoolo dhaqatinimada waan casreenaynaa kama baxaynadii waxa weeye 100 neef oo ariga hadaad soo iibsato hadda bal iga fiirsani oo hadda aad 400 iyo 300 bir soo sato jambaqa dadka xoolaha la yiraahdo oo aad u soo iibsato wuxuu cuni lahaa biyuhu cabbi lahaana aad soo iibsato calaf xoolo oo la wanaajiyo suuqa lagu gada jira oo calafka xoolaha soo iibsato siiso biyana u soo iibsato guri ku xareyso waxaan ku hubaa oo hadda la xaqiijiyay xerada madaxtooyada ku jirta saacadan shacabkiina aan siinay ay ku dhaqmayaan 100 neef waxa weeyaan 25 cisho kadib ama 30 cisho kadib 1500 ayaad siinaysaa way munaaxayaan hilib beeyanayaan waad yaabaysaa suuqna waxa laga soo siiyay 300 riyaal okay markaad ka jarto waxaan xisaabinay neefka okay 100 neef soo iibsay 100 neef ee xoolaha oo 300 soo weyda bil insa ku baxdo ma taqaanaa macal biyihiisa ay kharashkiisa iyo kharashkiisa waxa ku baxaya 150 bir hadayna soo iibsan ka hadlaya oo xoolo daaq u sameeynin laakiin calaf xoolo oo dukaanka yaalo soo iibso biyo aad soo iibsato oo guri ma taqaanaa xoolaha ku koriso xiraad sameeysa ku koriso 150 bir ku baxay neefkii waxaad ku dhafataa bil weeye 100 neef oo 150 amisa 15 bir weeye
15 bir baa kaaga baxay calafkiisii dawadiisii wixii soo dhanba maxaa soo siisay 100 neef oo 500 waa imisa konta kun iyo waxa isku dartaa 15 oo calafkiisii waa imisa 65 soddon cisho kadib wuxuu gooyay 1600 ama 1700 wuxuu hilib weyn buu yahay 4 neef u dhigmaya waxa ku dhufataa 100 lagu dhuftay 1500 waa 150 soo ah 150 waxaad ka jartaa 65 baad bil ku faa'iiday ninkii tijaabiyay ka waayay aniga hay weydiiyay lacagtiisa su'aal ma fadhidaan ninkii arinta tijaabiyay lacagtiisa waayay aniga hay weydiiyay عرفدي بقى سودو صوتك بقى سودو عرفها كل حتة دي يعني حول نقطة النمطة سرانو قاوي ناي عصر ما كده جناوين بقول له فسوي سني بيه سي دودي سوحك هذا بحشاني تمام كل السجينة وحويان كنت أكون بقى هذا بقول كنا فوق مشان بقول بس صوته وحوله ويده وشان بقى يرير ودويسي ولا عكسه بالكذب بقول له كنت بيكون جاري madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa ugu dambeyntii hadalkiisa ku soo xiray in bulshada deegaanku nimcada roobabkan da'aya uga faa'iideystaan dhinaca tabcashada beeraha iyo keedsashada biyaha isagoo sidoo kalena sheegay in xukuumaddu sida ay abaaraha ugu gurmatay oo kale ugu gurmanayso dadka ay fatahaadaha roob ku saameeyeen roob baaday roobkaasu waan alxamdulillah nimcu keenay nimcadaasna waxa weeyaan misqaanteeda Allah inaga duwo hanay noo sii socdo laakiin magaalada mustaxiil hadda banaanka fadhida kubriga u baahan tahay meelihii wabigu mariyay meelo badan baa fatahay oo gobollo badan baa kala jaran oo roobkii waxa weeyaan roobkani dee wanaag uu leeyahay shay abaar baa inoo leeyahay hadduu maanta waxa weeye ilaahay kama baryayno abaar iyo roob inaan ku dhimano laakiin way isdhaamaanday oo hadda qaar badan uu daad qaaday baa jira marka inaad taana saas ogaataan roobkan laga faa'iideysto tusaale ahaan baan siinayaa ruux guriga aan ceel uga qodnayn ama qasabad aan lahayn guri jingadan ilaahay siiyay oo majaroor leh ama jingada intuu u soo baxo ceel uma qodna oo meesha ma taqaana ceel kama laha waxa qasabad ugu jirto waxay ka dhigan tahay biyaha uu doonan de berri hadii la ilaaho habeenkii buu roob soo daay markuu habeenkii roob soo daay de inuu waxa weyn intuu baxo ninku uu bustaha ka hoos baxo uu jeerigaan qaato inuu u dhigto majaroorka bari wuxuu cabi lahaa ilaahay roobisa uu dhigto ma dadnina ma mise waxa weeyaan jingada war roobkii baa da'aya waa isnabi gow warka carruur baad leedahay reer baad leedahay arootina gabadhaada iyo wiilashaada biyo dooni oo soo dhaamine intaad kacdo oo hurdada ka kacdo jeerigaanka u dhigo majaroorkan socda waa cid ilaahay jinga siiyey kii kalena inay ka dhaansato ma taqaanaa waxa weeye meelihii xirfadaha meeshay sameyn lahayd waagu markuu bariyo hadduu yidhaahdo na hebley orada biyo noo doon oo gabadhii meeshii iskuul ka tagi lahayd jeerigaan qaaday qasabad ka soo dhaamiso ama meel kale ka soo dhaamiso soo dadnimxumo maaha taasaa loo baahanya inaan iska ilaalinadii mustaxiil iyo mataqaa meelahana inaan u gurmano oo waxa weeyaan aan shalay saam abaarta iyo waxa weeyaan ula qaybsanay shuubiyoodkiiba maantana inaan wanaagga roobku keenay ula qaybsano dhibaatada ka timid aan shacabkeena ka badbaadino yaa loo baahan yahay gabagabadii ayaa waxaa kulankan si buuxda la iskugu afgartay in iyadoo Itoobiyaanimada lagu faanayo aan marnaba laga sokaynin Soomaalinimo oo ah midda jiritaankeena qoomiyadda Soomaalida lagu aqoonsan yahay isla mar ahaantaana aan uga dhex muuqano qoomiyadaha kale ee dalkeena Itoobiya taasi oo adkeynteeda hogaaminta xukuumadda heerarka kala duwan ee mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha dawladdu gacmo isqabsi iyo sacab ay ku muujiyeen bulshoy waxaan isku ognahay inaan idinkeed isa deecnoon isku duubnaano isku ognahay bulshoy waxaan isku ognahay inaan idinkeed isa deecnoon isku duubnaano